Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nabada wadayaal idilkiinba meel kasta dunida ka joogtaan soo dhawaada. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Allaha u raxmado u naxariisto halgamaagii weynaa ee reer Falastiin Ismaaciil Haniya, kaas oo habeenkii xalay toole ahaa lagu diray dalka Iiraan, gaar ahaan magaaladiisa Tahraan. Haddaba waxaynu soo qaadan doonaa faahfaahinno dheeraad ah oo kasoo baxaya dilkii Ismaaciil Haniya. yaa qorsheeyay dilka Ismaaciil Haniya? waxa uu ahaa mid qorsheysan oo laga soo abaabulay meelo shisheeye. waxyaabaha ay ka tiri dowladda dalka Iiraan, kaas oo uu ka dhacay dilku wadanka Iiraan, arrimaha iyo khubarada waxyaabaha ay ka yiraahdeen, iyo saxaafadda caalamka waxyaabaha ay ka qortay dilkii loo geystay hogaamiyaha. waxaynu soo koobi doonaa oo kale daawadayaal taariikh nololeedkiisii, iyadoo oo aynaan halkan kusoo koobi karin taariikh nololeedkiisa, laakiin aynu isku dayi doono bal inaynu soo koobno, aynu soo ururino. waxaynu ka hadli doonaa oo kale doorkiisii siyaasadeed oo uu ku lahaa dalka Falastiin. waxaynu isku dayi doonaa bal intaa inaynu wax ka nidhaahno daawadayaal, laakiin waxaa naga xasuusinaa haddii si aad noola socoto una hesho wararka iyo macluumaadka halkan aanu kusoo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada, waxaanu ku leenahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar, muuqaalkana noo share garee oo meel dheer noo gaadhsiiya. haddaba inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. allaha u raxmado hogaamiyihii geesiga ahaa ee reer Falastiin, kaas oo habeenkii xalay toole ahaa lagu qaarajiyay dalka Iiraan magaaladiisa Tahraan. haddaba daawadayaal, sida aynu wada ognahay, hogaamiyahan reer Falastiin ayaa waxa uu fadhigiisu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay dalka Qatar, kaasoo habeenkii xalay toolaha uga kicitimay dalka Iiraan si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan, kaas oo bedelaya madaxweynihii ka horeeyay ee ku geeriyooday shilka diyaaradood, isaga iyo wasiiro kamida xukuumaddiisa, madaxweyne Ibrahim Raisi. haddaba faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dilkii loo geystay Ismaaciil Haniya xalay toole, mar ay waqtigu ahaa 2 habeenimo, kaas oo ku sugnaa dalka Iiraan, gaar ahaan magaaladiisa Tahraan. ayaa waxaa la xaqiijiyay oo la sheegayaa in aanu keligii geeriyoon, laakiin uu la joogay qof kale oo ahaa kamid ahaa ilaaladiisa gaarka ah, iyadoo ay ilo aan madax bannaan aan laakiin la xaqiijin ay sheegayaan inuu ahaa wiil uu isagu dhalayba ay saxaafadda caalamku qorayso, laakiin aan dowladda Iiraan aanay shaacin inuu kamid ahaa shaqtiga la geeriyooday habeenkii xalay toole ahaa. haddaba sida aynu wada ognahay, xalay toole waxa uu shir kula yeeshay qasriga madaxtooyada madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan, kaas oo dhowaan loo caleemo saari doono madaxtooyada in uu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan, madaxweynaha Mas'uud Pezeshkian. haddaba markii uu shirka uu la galay madaxweynaha aan weli la caleemo saarin ee Mas'uud Pezeshkian, ayaa waxaa loo gelbiyey dhanka magaalada Tahraan, guriga uu ka degi doono ama uu inta la caleemo saarayo madaxweynaha uu deegaan ku noqon doono. ayaa waxaa dhacday in sida ay wararku sheegayaan in gantaal laga soo riday meelo shisheeye ama dal shisheeye oo masaafo dheer ku socda uu ku habsaday gurigii uu ka deganaa caasimadda dalka Tahraan ee Iiraan. haddaba dowladda Iiraan ayaa shaacisay dilka, iyo warar ayaa xalay toolaba waxa ay ku dhawaaqday oo ay sheegeen in uu geeriyooday hogaamiyihii reer Falastiin ee Ismaaciil Haniya. isla waqtiga ay shaaciyeen waxa uu ahaa markii uu yimid guriga, uu isla markiiba uu ku dhacay qarax weyn oo la filayo oo aan la garanayn wuxuu yahay, laakiin 2 warar iskhilaafsan oo badan ayaa waxa ay kasoo baxayaan hogaamiyahan reer Falastiin in loo adeegsaday dilkiisa. wararka iskhilaafsan ayaa waxa ay sheegayaan in loo adeegsaday diyaarado daroon ah, kuwaas oo ka gabada ama ka dhuunta raadaarka. waxaa kale oo ay sheegayaan wararku waxa uu ahaa dilka waxyaabaha loo
adeegsaday gantaal lagu soo riday gaar ahaan kaasoo riddo dheer ku socday oo laga soo riday oo ay soo rideen Israa'iil. haddaba qodob kale oo daciif ah laakiin aan la xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan war aan xoog weyneyn ayaa waxa ay sheegayaan in meesha ama guriga dhexdiisa loogu diyaariyay isaga qudhiisa qarax inta aanu guriga ku hoyanin. sida kale arrimaha saxaafadda caalamka iyo khubarada caalamka ayaa waxyaabo badan ayaa aad uga qoray saxaafadda caalamka ayaa maanta waxay aad u qorayeen geerida allaha u raxmada Ismaaciil Haniya. haddaba saxafiyiin u dhashay oo ay ka mid yihiin wadamada Turkiga ayaa waxyaabaha ay aadka ugu dhaliileen dowladda dalka Iran daldaloolka badan ee ka jira xagga sirdoonka iyo habacsanaanta aanay ogeyn ninka la jooga ama qof ninkan weyn ee la jooga in aanay awood ay u yeelan waayeen inay ammaankiisa sugaan. haddaba dadka reer Falastiin oo aad u qaada dhigay dilka loo geystay Allah u naxariisto hogaamiyaha ayaa waxa ay sheegeen in ay dareemayaan xanuun aad u badan laakiin ay kasii qaadi doonaan adkaysi iyo dhiirigelin dilka loo geystay hogaamiyahooda. haddaba sida ay xoguhu sheegayaan iyo wararka saxaafadda caalamku ay qorayso ayaa waxa ay leeyihiin Israa'iil ayaa waxa ay qorshaysay mar horeba inta aanu soo gaarin Ismaaciil Haniya dalka Iran magaaladiisa Tehran in ay dilkiisa mar horeba qorshaysay oo ay ogeyd inuu tagi doono dalka Tehran ama dalka Iran magaaladiisa Tehran marka horeba inuu aadi doono uuna ka qayb gali doono in caleemasaarka madaxweynaha loo caleemasaarayo dalkaasi Iran. Ismaaciil ayaa haddaba waxaa la sheegay ehelkiisa in 60 kamid ay mar horeba lagu laayay ama lagu dilay duqeymaha Israa'iil ka geysanayso waqti xaadirkan magaalada Qasa oo ay isla ehelkiisu ku sugnaayeen magaalada. isaga ayaana hore u sheegay in 60 kamid ehelkiisa la dilay oo uu isaguna sugayo in maalintiisu ay timaado. haddaba waxaa ka hadlay hogaamiyaha Iran ama hogaamiyaha Iran ee Ayatollah Khomeini in ay u argudayaan oo ay waajib saaran iyaga ay tahay in ay u argudaan hogaamiyahoodii ama hogaamiyaha dalkooda martida ku ahaa. haddaba haddii aynu waxyaabaha taariikh nololeedkiisa qaybo kamid aynu soo qaadano inagoo aan soo koobi karin waxaa kamid ah Ismaaciil Haniya waxa uu ku dhashay 1962 kaam ku yaala xeebta magaalada Qasa ama magaalada Qasa. waxbarashadiisa waxa uu ku soo qaatay dugsigiisii hoose hay'ad caawisa Falastiin oo magaceeda lagu magacaabo hay'adda Anwa. jaamacadda waxa uu ka soo baxay jaamacad Islaamiya oo ku taala magaalada Qasa 1987 waxaana uu ka mid noqday hogaamiyayaashii ama dhiin kamid ah jaamacadda 1993. haddaba hogaamiyahan oo ahaa ama door weyn ku lahaa siyaasadda Falastiin ayaa doorkiisa siyaasadeed haddii aynu inagoo aan soo koobi karin laakiin qaybo kamid isku day doona inaynu ka soo qaadano. haddaba taariikhdu markay ahayd 1989 waxaa lagu xukumay hogaamiyahan 3 sano oo xabsi ah kaas oo lagu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Hamas. 1997 waxa uu noqday aasaasaha ama madaxweynaha iyo aasaasaha xafiiska Hamas kaas oo uu hogaamiye ka ahaa ninkii lagu magacaabi jiray isagana ay kharajiyeen isagoo gaariga curyaanka ku socda Israa'iil kaas oo lagu magacaabi jiray Sheikh Ahmed Yaasiin. haddaba 2006 ra'iisul wasaaraha waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii dalka Falastiin kaas oo ilaa xilka hayay taariikhdu markay ahayd 2006 ilaa 2014 kadib waxa uu iska casilay xilka ra'iisul wasaarenimo haddaba 2017 waxaa loo doortay madaxweynaha Hamas kaas oo kala wareegay xilka Khalid Mash'al. haddaba waxaa jirtay muddooyin badan ama waqtiyo badan oo ay ama Israa'iil ama wadamo shisheeye ay isku dayeen in ay kharajiyaan hogaamiyahan
doorka weyn ka soo qaatay Falastiiniyiinta ayaa waxaa mudooy ay isku dayeen in badan inay khaarijiyaan wadamo badan ay kamid yihiin Mareykanka kaas oo ay u arkayeen mid ama ay ku eedeeyeen inuu kamid yahay argagixisada oo madaxiisa lacag badan ay dul dhigeen. haddaba waxa uu ka badbaaday dilal badan oo aad u qorsheysan ama wadamo shisheeye ay qorsheeyeen muddo badan, laakiin maanta ayay tiisu timid. 2018 waxaa lagu daray liiska argagixisada kaas oo uu Mareykanku raadinayay muddo badan oo ku daba jiray. November 2023 waxaa shahiiday inankiisii ugu weynaa carruurtii uu awoowa u ahaa kaas oo lagu dhuftay gantaal gurigiisii uu ka deganaa magaalada Qasa. haddaba Abriil 2024 isla waqtiga isna waxaa shahiiday 4 kamid ah carruurtii uu dhalay kaas oo iyagana gantaal lagu dhuftay gaari ay wateen maalin ciida waqti ciida. haddaba bisha June 2024 isla waqtiga waxaa shahiiday isla sanadka waxaa shahiiday mar qura 11 qof oo kamid ah qoyskiisa kaas oo lala eegtay mid kamid ah gantaalada ay soo ridaan ama ay soo riday Israa'iil kaas oo lala beegsaday dadkaas oo ay kamid ahayd walaashii kuwaas oo lala beegsaday guri ay ka deganaayeen magaalada Qasa. haddaba isla maanta 3 bisha 2024 waxa ay noqotay ama la soo gabagabeeyay noloshii Allah u raxmaday hogaamiyihii weynaa ee reer Falastiin Ismaaciil Haniya. aynu u ducayno walaalayaal ama daawadayaal meel kasta adduunka ka joogtaan. intaynu barnaamijkeena xiga ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. haddii aad channelka ku cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto, muuqaalkana meel dheer aad noo gaarsiiso. waxaanu idin leenahay nabadgelyo.